kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka qodobada kugu helan waxaa ka mid noqon doona al-shabaab oo weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday deegaanka Qayb iyo dagaalo culus oo halkaas ka socda. wararkii ugu dambeeyay khasaaraha kala duwan ee ka dhashay dagaalkaasi waa berigi hore ee al-shabaab ay ku qaaday deegaankaasi ayaa daawo doontaan. waxaan kaloo idin soo gudbinaa madaxweynaha Soomaaliya wuxuu uu mar kale u ambabaxay dalka Masar ujeedka safarkiisa oo macluumaad badan ay kasoo baxayaan shirka la sheegayo inuu ka furmayo dalkaasi Masar ayaa soo gudbin doonaa madaxda la socota madaxweynaha oo ka qayb gashay shirka. waxaa kaloo daawo doontaan dowladda federaalka ayaa markii ugu horeysay xirtay qaar ka mid ah akoonada maaliyadeed ee dagaalamayaasha ururka al-shabaab. waan idin soo gudbin doonaa afhayeenka xukuumadda oo weerar dadban ku qaaday tabinta wararka la xiriira warbaahinta madaxa bannaan ee tabiso ee ka dhanka ururka al-shabaab. waan soo gudbin doonaa cali guud laaban wuxuu shaaciyay dhibaato ka jirta deegaanadii lagu xoreeyay dagaalamayaasha dhaqdhaqaaqa al-shabaab. qodobadaasaan ku faahfaahin doonaa warar kale ma caalamka diblomaasiyadda qodob muuqaalka la agtaarsiina shirgaray subscribe-ka noo saar gambalka furta aad baad u mahadsantihiin saaxiib badan u gaaro aanu ku bilaawno. wararka laga helayo gobolka galgaduud ayaa sheegaya in saaki aroortii hore xooga al-shabaab ay weerar ku bilowday qaraxyo ismidaamin ah oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ay ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo Qayb oo hoostaga degmada Baxdo oo ka tirsan gobolkaasi galgaduud. ila wareed lagu kalsoon yahay ayaa inuu xaqiijiyay in marka hore al-shabaab ay qarax ay ku dhufteen saldhig ku yaala halkaas, waxaana kadib xigay dagaal toos ah oo u dhexeeyay xubnaha weerarka soo qaaday iyo ciidamada galmudug oo garab ka helaya kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya. wararka ayaa intaas kusii daraya in dagaalka uu weli socdo islamarkaana uu yahay mid xoogan kaas oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan. sidoo kale waxaa lasoo wariyey in khasaaro iskugu jira dhimasho dhaawac uu ka dhashay weerarkan, waxaana ku dhintay ilaa 5 qof halka dhaawacan ay gaarayaan ilaa 10 kale. xog aan ka helnay ilo dadka deegaanka ayaa sidoo kale inoo xaqiijiyay in ciidamada huwanta ah ay sameeyeen iska caabin xoogan taas oo sababtay in khasaaro badan lagu gaarsiiyey xubnaha weerarka soo qaaday ee al-shabaab ka tirsanaa. xaaladda ayaa haatan ah mid kacsan, mana jiro wax war oo kasoo baxay saraakiisha ciidamada dowladda iyo dhinaca al-shabaab oo ku aadan weerarkaas iyo dagaalka xigaya. deegaanka Qayb oo dhaca duleedka degmada Cadaado ayaa dhowaan waxaa la wareegay ciidamada galmudug kadib markii ay iskaga baxeen xooga al-shabaab oo muddo maamulayay deegaankaas, waxaana saaka mar kale ay kusoo qaadeen weerar wacyigelisa oo sababay dhimashadii dhaawaca. al-shabaab ayaa ku furan dagaalo culus iyo sidoo kalente dagaalo dhanka dhaqaalaha iyo dhan walbaba, maadaama culeysadii ugu xooganaa la saaray tan iyo markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay dagaalka ka dhanka al-shabaab ee loogu ciribtirayo guud ahaan waddanka. dhinaca kalena dowladda markii ugu horeysay waxa ay sheegtay in la xiray akoono maaliyadeed oo al-shabaabku lacag ay ka heli jireen. waa dagaalka markaasi kale ee al-shabaabka kula jirto dowladda federaalka ayaa markii ugu horeysay ku guuleystay inay xanibto akoono maaliyadeed oo ay baxdo al-shabaab ay ku lahaayeen xawaaladaha iyo bangiyada dalka, sida uu shaaciyay wasiir ku-xigeenka warfaafinta al-cadaala oo saxaafadda kula hadlayay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in akoonada la xanibay ay ku jirtay lacag badan oo kooxda al-shabaab ay u adeegsanayeen dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed. waa sidoo hadal ku dhigay wasiir ku-xigeenka. in ka badan 10,000 oo fariimood ayaana soo gaaray kuwaas dadka nagula wadaagayeen akoonada ay qabaarijo lacagaha ay ugu diri jireen, taas oo keentay in bangiyada iyo xawaaladuhu ay xanibaan akoonadaas oo lacag ugu jireen baalire qabaarijo, ayuu yiri wasiir al-cadaala. wasiirka ma sheegin shirkadaha ay akoonada ay ugu furnaayeen kooxda al-shabaab iyo haddii ay jirto tallaabo ay dowladda qorsheynayso inay ka qaadayso. wasiirka wuxuu sheegay in tallaabadan ay qayb ka tahay dhaqangalka go-aanada dowladda kasoo baxa oo lagu curiyaaminayo ilaha dhaqaale ee al-shabaabka ay leeyihiin. dowladda Mareykanka ayaa qiyaas ay sameysay waxa ay muujisay in dakhliga al-shabaab usoo xarooda sanadkii uu yahay $182 milyan oo dollar. al-shabaab ayaa Soomaaliya ka sameysay dowlad dadban oo dhinac socota tan dowladda federaalka, taas oo xareystay lacagtan oo badankeed ka timaada canshuuraha iyo lacagaha kale ee baadda ah ee laga qado shacabka. canshuurta xoogeeda ay al-shabaab ayaana ugu soo xaroota degada Muqdisho iyo ganacsiyada shacabka Muqdisho. dakhliga al-shabaab kasoo xarooda lacagta ay ka qaado degada Muqdisho iyo ganacsiyada kale ayaa gaaraya $120 milyan, halka lacagaha kale ay ku hesho gobolada kale ee dalkan ay aad u tiro badan yihiin. si kastaba wasiir al-cadaala ayaa sheegay in qaar kamid ah ganacsiyada dalka ay hadda markaasi qaateen go-aankii dowladda ahaa inay diidaan inay lacag siiyaan al-shabaab, taas oo tilmaamay inay si weyn u saameyn ugu yeelatay kooxda al-shabaab. qaybihii hore ayaad daawanaysaan janalkeena ayaadna nagala socotaan kulmiska wararka
muuqaalada like inoo saara oo sii share gareeya subscribe inoo dhaha si saaxiib badan u gaaro aad baad u mahadsantihiin. bal markaana aan eegno wariyaasha Soomaaliyeed ayaa kulan duceed ah magaalada Muqdisho ugu sameeyay Allah u naxariistay Maxamed Ciise Koona iyo Cabdullaahi Jaamac oo kamid ah dadkii ku geeriyooday qaraxdii Soobalaabo. kulankaas loogu duceynayay labada wariye ayaa waxaa ka soo qayb galay inta badan wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho madax banaan. waxaa halkaas hadallo ka jiray xubnihii ugu sareeyay suxufiyiinta ka soo qayb gashay kulankaasi. agaasimaha warfaafinta ee xafiiska wasaaraha Farxaan Maxamed Jimcaale oo kamid ah mas'uuliyiintii ka hadashay halkaas ayaa si adag uga hadlay doorka warartabinta ee suxufiyiinta Soomaaliyeed iyo ficilada waxa loo yiri argagixisada. wuxuu sheegay in wariyaasha Soomaaliga ah ay usan dhexdhexaad ka noqon karin gumaadka ku socda dadkeena Soomaaliyeed. war sidaan si maahe aan wax ka bedelno tabinta wararkeena la xiriira argagixisada ayuu yiri Farxaan Jimcaale. Farxaan ayaa tusaale usoo qaatay in dunida ay mamnuuc ka tahay in dhexdhexaad laga noqdo qadiyad la xiriirta argagixiso. xitaa qof ay argagixiso haysto in madax furasho laga dhiibo adduunka dambi ayay ka tahay ayuu yiri. wuxuu intaas ku sii daray waxaan haysanaa fursad aan weligeed soo marin Soomaaliya. cabsi laga qabay shabaab waa dhamaatay. dadkii lacagta siin jirayna ayaa diiday. mikrofonkii idinka ayaa haya ee aan kor u sheegno waxa wanaagsan ayuu sii raaciyay. wuxuu sheegay in dadka dhan ay al-shabaab ay markaas lagu xukumayeen balse loo baahan yahay in geesinimo lagu dhinto adiga oo la dagaalamaya nimankaas dhimo. ayuu hadalkiisa ku sii daray afayeenka Maxamed Ciise Koona iyo Cabdullaahi Jaamac ayaa kamid ah wariyaasha Soomaaliyeed ee sida weyn uga soo shaqeeyay saxaafadda. waxayna muddo dheer kasoo howlgalayeen warbaahinta dalka. dadkii ku dhintay qaraxii Soobalaabo ayaana kamid ah in eebba naxariista janno ka waraabiye qaybii dhexe ayaad isa soo gaarnay janalkeena kun isku wararka daawadayaal. haddii aad noqoto subscribe kuna sarkan balkan furo una sii share gareey saaxiibadii meel kasta joogaan aad baad u mahadsantahay. hadda jeelsi aad nala socotaan markaana waxaan aadaynahay Shabeellaha Dhexe. madaxweyne Cali Guudlaabe ayaa shaaciyay dhibaato ka jirta deegaanadii laga xoreeyay al-shabaabka. Cali Guudlaabe ayaa saacadihii lasoo dhaafay kormeel ku mariyay deegaanadii laga xoreeyay kooxda al-shabaab ee gobolka Shabeellaha Dhexe. deegaanada kale ah Wargaadhi, Geedi Xeer, Xasan Geedi, Qaahir, Maxaa Ciise iyo Nuur Dugle oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay laga xoreeyay al-shabaab ayaa safar dhulka ku maray Cali Guudlaabe. madaxweynaha ayaa sheegay in deegaanadii uu soo maray uu kusoo arkay xaalado aad u liitay isagoo dadka ku nool deegaanadii laga xoreeyayna ku tilmaamay inay ayeen maxaabiis oo kale, xarumo waxbarasho iyo kuwa caafimaad inaysan lahayn dhammaanba deegaanadii laga xoreeyay kooxda. ayuu sheegay Cali Guudlaabe isagoo ballan qaaday in degdeg maamulkiisa u howlgeli doono xarumihii danta guuda. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meer Makaraan Axmed Daaci iyo saraakiil ciidan ayaa madaxweynaha ku weelinayay safarkaas. waxaana deegaanada Nuur Dugle ugu tagay xildhibaan Yuusuf Ibraahim Afrax iyo xildhibaan Cusmaan Xaadule oo hogaaminaya howlgaladan markaas xoreynta ah. ciidan ayaa hadda ku wajahan aadan yabaal waxa ayna saacadaha soo socda halkaasi ka xoreyn doonaan qabarinta ciidanka Shabeellaha Dhexe. xoreynta iyo kuwa hiiraan ka imaanaya waxa ay iskaga hor imaan doonaan buuri aadan yabaal ayuu sii raaciyay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe. ugu dambeyntii madaxweynaha Hirshabelle ayaa sheegay in maalmaha soo socda al-shabaab ay ka xoreyn doonaan dhammaanba gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaana ay usii gudi doonaan galgaduud gaar ahaan degmada Ceel Dheere. wararka waaweyn ee Soomaaliya caalamka aad kala socoteen channelkeena daawadayaal waana inta subscribe kuna soo arkan balakana furta una sii share gareeya saaxiibadii meel kasta joogaan aad baad u mahadsantihiin. idinku commentiga like inoo ribaya nabadgelyo.